السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا سلام صاحب يعني كسر هذا السماء كومنت كلش يو عشرة ذي وساب سنة يعني soft skills يو English لكن عشر كان المانتا وعشر وساب سنة حالي هذا monitoring and evaluation. بإله كرنا وحمد الله بدنا small course أما course لسوق الجابي أو كساب سنة monitoring and evaluation. evaluation and monitoring waxaa waa markii mashruuc la sameynayo ayaa waxaa la yiraahdaa monitoring and evaluation M&E. Soomaali waxaan maleynayaa inay tahay dabagalka iyo korjoogteynta. Marka waan soo gabagaabinaynaa maadaama uu yahay course weyn oo jaamacadda ilaa 4 sano lagu baran karo, laakiin si aad u fahantiin ayaan wax yar kasoo qaadan doonaa haddii ilaah ka raali noqdo. Course topics wuxuu noqon doonaa Model 1 wuxuu noqon doonaa Introduction to Monitoring and Evaluation oo hoos imaado linka M&E to Project Design. Model 2 wuxuu noqon doonaa Linking M&E to Project Design oo iyadana hoos imaan doonta waxa la yiraahdo Define the Indicators that will be measured. Model 3 waxay noqon doonta waxa la yiraahdo Identifying Indicators and Targets oo iyadana hoos imaan doonta waxa la yiraahdo Choose Appropriate Data Collection Method. Model 4 waxaa noqon doonta waxa la yiraahdo Data Collection oo iyadana hoos imaan doonta waxa la yiraahdo Create Clear Useful Data Collection Method. Number 5 oo modulka u dambeeya modulka shanaad ah wuxuu noqon doonaa waxa la yiraahdo Rules and Responsibility oo iyadana hoos imaan doonta waxa la yiraahdo Assign M&E Rules and Responsibility. waxaan ku baran doonaa model 1kan key termskeeda. Monitoring maxaa waaye, evaluation maxaa waaye, data maxaa waaye, pairs maxaa waaye, longer frame maxaa waaye, input maxaa waaye, output maxaa waaye, outcome maxaa laga wadaa, impact maxaa laga wadaa, risk maxaa laga wadaa, and lastly key assumption maxaa waaye. So under this unit waxaan ku baran doonaa modulkan explain why monitoring and evaluation are important, discuss the difference between monitoring and evaluation, you understand the role of monitoring and evaluation in project cycle. Marka aan ogaado dadka u baahan subscribe hal sar channelka hoosna comment ha lagu soo dhigto insha Allah. Assalaamu calaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.